السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داوديال ميل كاستا oo aad nagala socotaan ku soo dhawaada TV-ga Ilays oo aan idinku hayno wararkii ugu dambeeyay iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh qodobada aan idinku hayno waxaa kamid ah shirweyne ka dhacay magaalada London oo madaxda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ka hadleen Cabdullaahi Xuseen oo ka qayb galay kulankii xuquuqul insaanka ee ka dhacay wadanka Sweden jaaliyada ogaadeen ee Victoria oo siminaaro qabatay iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeen ku qaadeen gumeysiga Itoobiya dhulka ogaadeen ayaa waxa ka socda dagaalo maalinle ah oo u dhaxeeya ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ciidamada gumeysiga Itoobiya haddaba dagaaladii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gudaha ogaadeen ayaa lagu jibiyay ciidamada nacabka gumeysiga Itoobiya wararka naga soo gaaraya xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa sheegaya dagaalo xoogan oo lagu qaaday askarta gumeysiga Itoobiya ee jooga dhulka ogaadeen dagaaladaas oo dhacay intii u dhaxaysay bishan aan ku jirnay November 10keedii ilaa 17kii November 2012 waxaa ciidamada gumeysiga Itoobiya lagaga dilay ciidamo kor u dhaafay 78 askari dagaaladan ayaa ka dhacay 16 goobood oo kamid ah dhulka ogaadeen waxaana kamid ah deegaanadaas deegaanka lagu magacaabo Cumar Cadaan oo dhuxun u dhow dagaal halkaasi ka dhacay waxa askarta gumeysiga Itoobiya lagaga dilay 5 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale Achooley oo sasabane u dhow waxa ciidamada moraalka jabsan ee gumeysiga Itoobiya lagaga dilay 10 askari waxaana lagaga dhaawacay 15 kale ceelka shidaalka ee Kaaluub weerar mir ah oo lagu qaaday ciidamada gumeysiga Itoobiya waxa lagaga dilay 5 askari deegaanka lagu magacaabo Xaraadamaha oo ka tirsan magaalada Qabri Dahar waxa askarta gumeysiga lagaga dilay 2 askari deegaanka lagu magacaabo Hore Hawd oo ka tirsan Jigjiga dagaal ka dhacay waxa askarta gumeysiga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale Hore Khalifa oo ka tirsan Qabri Bayax dagaal ka dhacay waxa askarta gumeysiga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 7 kale kamiin ay cutub ka tirsan naftood hurayaasha ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeen u dhigeen gaadiid gumeysi oo marayay deegaanka lagu magacaabo Karin Barkhadle ayaa waxa halkaasi lagu gubay hal baabuur waxaana inta la xaqiijiyay ku baqtiyay in ka badan 12 askari sidoo kale warbixintan ay soo saartay xarunta dhexe jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa sheegaysa dagaalo xoogan oo dhacay taariikhdu markay ahayd 12kii 13kii 14kii iyo 16kii iyo 20kii oo maanta ah bishan 11aad 2012 dagaaladaas oo ka dhacay deegaanada kale ah Dhagax Madow ceelka shidaalka ee Kaaluub Kabi Abastar fiiqyaha Faarweyne Ari Cadeeye iyo Jeerinka oo fiiq ka tirsan waxaana dagaaladaas askarta gumeysiga loogu geystay khasaare lixaad leh sida ay xarunta dhexe jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ay warbixinta ku soo saartay waxaa lagu qabtay dalka Sweden shir lagaga hadlayay xuquuqul insaanka iyo xorriyadda saxaafadda oo ay soo wada diyaariyeen hay'ado fara badan oo isugu tagay shirkan waxaa seminar ka soo jeediyay Cabdullaahi Xuseen oo ah haliyay u dhashay ogaadeen shir ay soo wada diyaariyeen hay'adaha xuquuqul insaanka ee wadanka Sweden ayaa looga hadlay xorriyadda qowlka ee wadamada Carabta Afrika iyo Hindiya shirkan oo diiradda lagu saaray dhulka ogaadeen ayaa waxaa warbixin iyo seminar saacado qaatay halka ka soo jeediyay Cabdullaahi Xuseen oo ah muwaadin u dhashay ogaadeen Cabdullaahi Xuseen ayaa ka waramay filmadii laga soo daayay TV-yada wadanka Sweden ee ka hadlayay gumaadka iyo xasuuqa lagu hayo shacabka ogaadeen shirkan kadib waxa Cabdullaahi wareystay suxufiyiin caalami ah oo ay ka mid yihiin idaacadaha wadanka Sweden Cabdullaahi oo ku sugan wadanka Sweden waxa sidoo kale uu ka qayb galay kulankii dhalinta OYSU Sweden shirkaas ayaa jaaliyada ogaadeen ee Sweden ay ka bixisay ogeysiis ah in dhawaan lagu qaban doono wadanka Sweden kulan aad u weyn oo lagu soo dhaweynayo Cabdullaahi Xuseen isla markaasna halka lagu daawan doono filimaan badan iyo warbixin uu halkaas ka siin doono Cabdullaahi shacabka reer Sweden ee ka soo jeeda ogaadeen dhinaca kale wadanka Norway ayaa taariikhdu markay ahayd 19 bishii 11 2012 waxaa lagu qabtay kulan loogu magac daray Norway kaalintay ka qaadan kartaa arrimaha Itoobiya kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway waxaa ka soo qayb galay dhammaan baacidaha ay khusayso Itoobiya waxaana ka qayb galay Justice for Ogaadeen gudoomiyaha ururka Justice for Ogaadeen ayaa halkaas ka soo jeediyay warbixin taabanaysa lacagaha deeqda ah ee wadanka Norway siiso Itoobiya midaas oo lagu gumaado shacabka ogaadeen iyo shucuubta Itoobiya gudoomiyaha Justice for Ogaadeen ayaa yiri sidee ayaa loo kaalmeyn karaa dawladda Itoobiya oo ka soo saartay dhulkoodii hay'adaha xuquuqul insaanka sida Red Cross Amnesty International iyo hay'adda MSF
oo ah dhammaantoodba hay-adihii xaqiijin lahaa mucaawimaadka la siiyo Ethiopia meesha la siiyo iyo sida loo isticmaalay. shirkan oo ay kasoo qayb galeen hay-adaha dawliga ah, xuquuqul insaanka iyo kuwa gargaarkuba ayaa ugu dambeyntii wasiirka horumarinta ee wadanka Norway uu u mahad celiyay dhammaanba kasoo qaybgalayaashii shirkan. waxa uu sheegay in macluumaadkan ay maanta aruursadeen la hortagi doonaan dowladda wadanka Norway, gaar ahaan qaybta arrimaha dibadda. waxa uu sidoo kale sheegay in wax laga qaban doono isla markaasna go'aan laga qaadan doono wadanka Ethiopia. jaaliyadda Ogaadeniya ee Victoria ee wadanka Australia ayaa qabatay tababaro loogu talagalay horumarinta jaaliyadda Ogaadeniya ee Victoria. tababarkan oo qaybtii labaad ah waxaa bixiyay marti ka socotay dowladda Australia. Who bears witness of these malicious crimes? I don't know what peace and tranquility feels like. I don't remember what I last feel ease. I don't enjoy Mama.